maalintii aan ogaaday kadib waxaan ka dhigtay routine maalinle ah. maalin ima soo marin ilaa waan akhrin jiray. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan daawadayaasheen sharafta leh ee ku xiran channelkeena, soo dhawaada walaalayaal, ku soo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub oo aad iyo aad u xiiso badan. waxaan rajeynayaa inaad nabad qabtaan oo caafimaad qabtaan. alxamdulilaahi daa'iman wa abadaa. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa in uu noo siyaadiyo nimcooyinkuuna siiyey. alle subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هداد إلهي كشكردان نمعوينك أو نسي أن دهنا الحمد لله إلهي ونوزي يا لكن هداكو كفرسو أو آد نقطو قف أن أركن نمعدو إلهي سيي. إلهي سبحانه وتعالى عقابتيسا ويابكتهاي مرور المحسوسنو إن دهدو الحمد لله إله نوزيادي نمعوينك آد نسيسي inta aanan haysanina. si soo dhawaada asxaabta. waxaan idin la wadaagi doonaa maanta suurad cajiib ah, suurad dad badan sabab u noqotay in noloshooda iyo xaaladahooda ay isbedesho. qisas cajiiba oo ku saabsan qisadeena koowaad maanta waxaan ila wadaagayo wiilkani wuxuu yiri waxaa qabtay xanuun daran oo dhakhaatiirtii ay dhaheen rajo ma lihid, xanuunkaaga waa kansar, wax daawo ah uma hayno, xanuunkaaga wuu faafay. wuxuu yiri xitaa waxay dhaheen dhimashadaada intaas ayaa ka dhiman, waad dhimanaysaa, noloshiyo idil ayaan ka rajo dhiga ayuu yiri. marka hore warkooda waan aaminay, waayo wuxuu yiri aniga xanuunka ihaayana wuu darnaa, dhakhaatiirtiin hadday sidaas igu dayriyeen wax rajo ah oo dambe oo nolosha kale ma jirin. maalin maalmaha ka mid anigoo guriga iska jooga iska xanuunsan, laakiin markaas xanuunka uga yararonaaday maadaama aan isticmaali jiray xanuun baabi'iyaal, ayaa waxaa dhacday in muuqaal nolosheedii bedelay uu iga hor imaado. muuqaalkaas wuxuu ka hadlayay faa'iidada ay leedahay suuratul faatixa iyo siday dad badan isugu daaweeyeen iyo siday daawo u tahay. wuxuu yiri waan farxay, waxaan dareemay in ilaahay subxaanahu watacaala ila jeclaanayo inaan akhriyo suuradaas. waxaan dareemayba suuradaas daawadeedii inay tahay anoo bilaabin oon akhrininba. wuxuu yiri waxaan ku gudagalay oo aan bilaabay inaan akhriyo suuradan anigoo u niyeysanaya keliya in ilaahay igu caafiyo, wax kale ma niyeysanayn. suuratul faatixa alxamdulilaahi rabbil caalamiin arraxmaani arraxiim maaliki yawmiddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala ddaalliin. kaliya waxaan u aqriyaa oon ugu celceliya in ilaahay i caafiyo. wuxuu yiri markii aan cabaar waday horta waxaan dareemay in xanuunkii tartiib iga yaraanayo, waayo awal waxaan ahaa qof daawooyin ku nool, xanuun baabi'i bas ku nool. alxamdulilah wuxuu yiri xanuunka ayaa tartiib iga roonaaday ilaa markii dambe xanuunkii oo idil uu idaayo. waan yaabay, yacni qariib ayay ila ahayd in xanuunkaas uu idaayo. dhakhaatiirta ayaan ku laabtay ayuu yiri, baaritaana ay igu sameeyeen, waxayba ii sheegeenba kansar inaan qabin oo aan fiicanahay. way ila yaabeen, waxay weydiiyeen waxaan isticmaalay. kaliya waxaan isticmaalay suuratul faatixa. suuradaas waa daawo. qisadeena labaad waxaa inooga sheekeynaysa gabadhaani waxay tiri waxaa i qaban jiray xanuun aad iyo aad u daran. xanuunkaas maanan garanaynin sababtiisii iyo wuxuu yahay. xanuunkaas sanadkiiba ama dhowrkii sanaba mar ayuu i qaban jiray. xanuun dhowrka iga qaban jiray ayuu ahaa ayay tiri, wuxuuna ahaa xanuun aad iyo aad u daran. xanuun daran ayuu ahaa. waxaa dhacday maalin inuu i qabtay anigoo umul ah ayay tiri. xanuunkaas anigoo umul ah oo dhalay oo muddo yar umul ah ayuu i qabtay xanuunkaas. markuu xanuunkaas i qabtay waxay tiri wuxuu ahaa xanuun daran oo aan dhaqaaqi karin. dadkii guriga ila jooga ayaan xanuun baabi'iyo u dirsaday, anuun tabaraan ku istaagahaynin. hadda xanuunka i haayo waxaan ku qiyaasa malahan ayay tiri. waxaa dhacday marka in aan daawadii xanuun baabiyaha qof u dirsaday. intii daawada lagu maqnaa waxay ila noqotay waqti dheer. waxaan bilaabay inaan aqriyo suuradan, suuratul faatixa, anigoo u niyeysanaya in xanuunka ilaahay iga qaado.
hadda xilliga aan soo xasuusanaya inaan suuradan aqriyo waa xilli xaalad adag iyo xanuun adag aan ku jiro oyba adag tahayba dadka qaar in xilligaas ay soo xasuustaan inay quraanka ilaahay isku daaweeyaan xanuun daran oo dhulka aan la istaagi karin ayaa ii hayay tiri waxaan bilaabay inaan akhriyo suuratul faatixa anoo u niyeysanaya si niyad ah wax walba waa niyad anigoo u niyeysanaya in ilaahay igu caafiyo waxay tiri 7 mar markii aan akhriyay 7 mar ayaan akhriyay suuratul faatixa qofkii aan kiniiniga xanuun baabiya u dirsaday intuu keenin xanuunkii waa iga fuqay waxay tiri yacni qisada ugu cajiibsan oo aan ka arkay suuratul faatixa waa qisada nolosheeda ugu cajiibsan xanuunkii darnaa ee ihaayay waxaad moodaa qof arbad intuu ku istaagay ka bowday يعني البد مركا ku taaganta aad ay xanuun badan laakiin markii cirbada ay ka baxdo xanuunku waa ku daayay sidaas ay la mid ahayd ay tiri qofkii aan daawo u dirsaday kaniiniga lii keenay maan cunin waan caafimaaday hal mar ayuu ilaahay ka siibay 7 mar ayaan akhriyay suuratul faatixa meeshii xanuunaysa ay gacanta mariyay markii aan akhrinayay waxaan u niyeystay in ilaahay uu caafiyo xanuunkii idilba alla subhanahu wa ta'ala waa iga qaaday qisadeena ugu dambeyso ee aan maanta idinla wadaagayo waxa inooga sheekeynayso gabadhaani waxay leedahay waxaan ahaa gabar da'deeda 40 gaartay oo aan weli guursan yacni waa gabar guurkii ka soo daaho 40 gashay waxay tiri guurkii ayaa iga soo daahay 40 ayaan gaaray marka hore dadka ayaa ii jireen waa daahday guurkii ka daahday laakiin markaan waxay tiri anaa qoostay oo rajo dhigay waaye 40 sano intaan gaaray kadib waa lagu guursana ismaana lahayn maalin maalmaha kamid ah anoo qadka iska fiirsanay YouTube-ka ayaa waxa iga hor imaatay ay tiri gabar ka sheekeynayso qisas ku saabsan suurada qiimaha badan ee suuratul faatixa iyo dad dhacdada aniga haysato oo guurkii ka soo daahay kadibna markay akhriyeen suuratul faatixa ilaahay guurkii ugu fududeeyay waxay tiri waxa ay gashay rajo ah inaan bilaabo suuratul faatixa la'alla al-faraj inuu igu imaado waxay tiri waxaan akhriyay oo bilaabay akhrinta suuratul faatixa anigoo u niyeysanaya in ilaahay subhanahu wa ta'ala guur igu siiyo aad ayaan u akhrin jiray tiri يعني tiri gooni ah ma akhrin jiran laakiin jaanis walbo aan haayo shaqada intaan haayo wax walba intaan qabanayo maadaama ay tahay suurad aan kor ka xifdisano suurad dadku idil kor ka xifdisan yihiin ay tahay waan iska akhrin jiray tiri hadaan wadada soconayo hadaan baabuur saaranahay shaqada guriga hadaan haayo inaan jiifo ama musqul aan ku jiro ama ma ogi waxay tiri suurada routine ayaan ka dhigtay routinkeyga ayaan ka dhigtay tiri oo afkeyga hadaan kala furheer aan gaaro in uu ka soo baxo aayada kamid ah suuratul faatixa waxay tiri 5 bilood markii aan sidaas ahaa oo aan akhrinay suuratul faatixa oo aan u niyeysanay in ilaahay guur igu siiyo maalintii dambe waxay tiri nasiibkeygii ayaa albaabka ii soo gargaraacay masanin wanaagsan family wanaagsan ka soo jeedo dhaqaale haysto daddiin la ka soo jeedo dhinac walba ka dhameystiran inkastoo bini aadan u dhameystirnayn laakiin nin aad iyo aad u wanaagsan ayaa ii soo doontay ayay tiri oo si qurux badan ii soo doontay hanti fiican dhiibay reerkeeni sharfay kaale iska arag si qurux badan ayaa lii siiyay tiri guurkeygii ayaa dhacay alxamdulillaah maanta aan qisadan ka sheekeynayana waxaan ku noolahay nolol tii ugu quruxda badneed hadaba suuratul faatixa waa suurad cajiib ah wax walba aad u niyeysato ayuu alla subhanahu wa ta'ala kugu siinayaa haddii aad xanuunsan tahay haddii aad awlaad raadinayso haddaad guurdoon tahay hadduu culays ku haysto haddii deymo lagugu leeyahay meel kastoo laga haysto xalka wuxuu ku jiraa inaad ilaahay tala saarato inaad si niyada u akhriso suuradan qiimaha badan ee suuratul faatixa waa mahadsantihiin walaalaha khayrka jecel qisaskeeni ku saabsan maanta suuratul faatixa halka ay noogu egyihiin haddaa meesha soo gaartay muuqaalka like saar haddaa hore noola joogto waa mahadsan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuhu. qaybta hoose commentigana kusoo qora saliga xabiibkeena Maxamed.